laaday in laga laabto isbeddelka lagu sameeyey dhaqaalaha lagu kabo dadka saboolka kadib markii ay 5 maalmood socdeen mudaharaadyo lagaga soo horjeedo isbeddelada la sameeyey. Ortega ayaa sheegay inuu meesha ka saarayo isbeddelada wuxuuna ku baaqay in wada xaajood la furo. Hogaamiyaasha ganacsatada ayaa dalbaday in madaxweynuhu marka hore joojiyo cabrinta ay wadaan booliiska. In ka badan 25 ruux ayaa ku dhintay deganaansho la'aanta dalkaasi ka taagan. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay hakisay barnaamijkeedii propagandada ahaa ee ay ka baahin jirtay xadka ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi si loo abuuro jawi nabadeed ka hor shirka koobaad ee labada dal ay yeelanayaan markii u horeysay muddo 10 sano. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa lagu wadaa in uu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya Stephen de Mistura ayaa sheegay in kulankan caadiga ahayn ee golaha ammaanku uu gacan ka geystay in la dajiyo xiisadda. de Mistura ayaa sheegay in uu dareemay in adduunku uu qarka u fuulay halis baaxad weyn. hogaamiyihii hore ee Serbiyiinta Bosnia Radovan Karadzic ayaa maanta bilaabaya racfaan uu ka qaadanayo 10 dambi oo la xiriira xasuuq, dambiyo dagaal iyo xadgudubyo aadanaha ka dhana oo dhacay intii uu socday dagaalkii Bosnia ee 1990-meeyadii. Maxkamadda hoos tagta qaramada midoobay ayaa ku xukuntay 40 sano oo xabsi ah. maxkamad ku taala magaalada Brussels ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqdo xukunka Saalax Cabdilsalaan oo ah ninka kali ah ee nool ee looga shakisan yahay weerarkii dadka jihaadoonka ah ee ay qaadeen ee magaalada Paris ka dhacay 2015. Saalax Cabdilsalaan iyo nin kaleete ayaa loo haystaa in ay isku dayeen inay laayaan booliiska Belgium oo rabay in ay xiraan. ugu dambeynna xidiga Liverpool u dheela Mohamed Salah ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaarahanka ugu wanaagsan Ingiriiska. ciyaaryahankan reer Masar ayaa xilli ciyaareedkiisii u horeeyay dhaliyay 31 gool. warkii dunidana waa naga intaas. Cabdi Fataax aad baad u mahadsan tahay. xasan deeq Cabdullaahi Hayba iyo kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu door karoon. halkaas kala socotaana waa BBC. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilowna sida aad warkaba ku maqlayseen Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay hakisay dacayadaha ka dhanka ah waqooyiga ay ka baahin jirtay samaacadaha waaweyn ee ku rakiban xadka labadaasi dal si loo abuuro jawi wanaagsan oo ku qabsoomi karo wadahadalada ka dhaxeeya labada hogaamiye ee lagu wado inay dhacaan toddobaadkan. haddaba Bashiir Maxamed Caato ayaa faafahinta warkaas soo akhriyay oo haatan studio igula soo biiray. Bashiir, bal noo waran. cabditaxow sidaad sheegtayba talaabadan ku dhaqaaqday Kuuriyada Koonfureed ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in loogu wado in maalinta Jimcaha ee toddobaadkan uu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo markii ugu horeysay cabditaxow muddo 2 sano ku dhawaad oo Kuuriyada Koonfureed ay joojisay baa la yiri dacayadaha ka dhanka Kuuriyada Waqooyi oo samaacadaha ay markaasi ku baahiso. waana dhibaa webiga biyaan ugu soo fataha wixii fasalo waa tahay waan ka xunahay codka ina soo dhex galay. Bashiir, marka la fiiriyo dacayadahaas lagu baahin jiray xadka waqooyiga mudday soo socdeen sanadaha waliba maxaa looga gol leeyahay haatan joojinta la sameeyay? cabditax waxaa la sheegay in samaacadahani oo ku rakiban xadka labada wadan ee Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi lagu baahin jiray heeso dacayada ka dhanaa Kuuriyada ee Waqooyi, warar ku saabsan Kuuriyada Koonfureed waliba sidoo kale mararka qaar shucaac lagu baahin jiray oo dadkaasi shucaac lagu furi jiray. xukuumadda Pyongyang ayaa sidoo kale iyaduna waxa markaasi la sheegay in dacayada lamida kuwaas iyaduna ay baahin jirtay oo u adeegsan jirtay maxay tooyay samaacadaha waaweyn. marka dowladda Kuuriyada Waqooyi sida noogna Cabditax oo dhowr cisho ka hor waxay ku dhawaaqday in si dhaqso ah u hakinayso tijaabada dhanka nuclear-ka iyo degantaalada sidoo kalena maxay tooy albaabada isugu dhufanaysa xarunta tijaabada ee nuclear-ka ee wadankaasi. waxa kale oo jirta Cabditax in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu xusay in ay muhiim tahay tijaabooyinkaasi inaanay sii socon maadaama uu yiri laga gaaray hadafkii laga lahaa. afeen sidoo kale u hadlay Cabditax isna madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo toddobaadkan soo dhaafna hadlay waxa uu sheegay in qorshahaasi ay ku dhaqaaqday Pyongyang ee ku hakinayso tijaabooyinka dhanka nuclear-ka
markaasi uu ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday loogana gol leeyahay baabi'inta hubka nuclearka ee gacanka Kuuriya. waa tahay Bashiir Maxamed Catayo kaasi ahaa oo faafahinta warkaasi ina siinaya halkaad warbixinadaasi kala socotaana waa BBC. markana warbixinadii aanu ku eegaynay daadadka ku dhuftay gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan magaalada Gaarisa ayaan weli ku guda jirnaaye waxaanu maanta eegaynaa saameynta ay daadadkaasi ku reebeen beeraleyda Gaarisa oo dalagii intiisii badnaa ay biyahooda qaadeen ama biyuhu ay la tageen. haddaba Daahir Maxamed Qanyare waxa uu ka mid yahay beeraleyda webiga Tana ee mara magaaladaasi Gaarisa. waxa uu waramay wariyaha BBC-da Bashkas Jug soo dhacay. waana dhibaa webiga biyaa lagu soo fataha wixii fasal oo dhan waa gooyaa fasalkaas oo u badan fasalka yaryar sidii qaraha yaanyada barbarooniga bilibili waxa soo dhan waa baabiya marka webigan wuxuu noo hayaa laba dhib waa keena dhibka oo horeeya waxa waaye biyo markii roobda soo fataha wixii qoodaan oo dhan waa baabeen midda labaad jilaal markuu gorana waa gura meelaha qaar beeraha qaar biyaa ka tagaan waa angagaan biyaha soo gaareen mar roob meeshan ka daayba mis waa biyo meel kale ka imaadeen labada waa isku mid meeshan roob weyn ka daay korna waa ka imaadeen labadaba isku daray laakiin agtaan roobka ka daaba aad u badan laftiis biyana arkaysaa webiga ka soo bixin marka faraha soo raacayeen ilaa ay magaalada ay galaan beerihi ma la gaari karaa hadda beerihi maya lama gaari kara looma tagi kara dabaal iyo doon wax in lagu dayaa ma oga lama tagi kara sida wax lagu soo daldala waa kan beerihina looma hagaajin jididii lagu gali jiray hadii mar lagu shabo oo laga sii shaqeeyo la hagaajiyo waa lagu dayilay in la galo oo maartay wax laga soo qaato wixii karin Allah ka meeshay ku boolanayeen ay ku halaabayeen muddo intee leegi marka biyahan ay beeraha dhax fadhiyeen bil inuu soo fadhiyeen saana biyo u fadhiyaan wixii fasal oo ku yeela cambada leenti wax laga soo bixin kara male meeshay ku halaabayeen ku jiraan jid la mari kara male bis waa dhooba lama mari kara biyo lama mari kara miraha xoogoodan awal Nairobi aadan sidii hadda cambada laba dhowr nooc ah ee leenta ee qaraha watermelonka maylonka inta waxa aadan Nairobi la aadiyay Mombasa la aadiya maanta daadada taar milo taal la markay oo waxa leedahay dhawaanahan cambadii iyo waxa la sheegayso oo loo qaadi jiray dhinaca maarta Nairobi iyo magaalayaal kale lama qaado maxay lama soo guri karaba meel loo soo mara wax meel la soo mara male waa darkiisa hadda nin tunkiisa wax ku soo qaaday oo maartay garabkiisa wax ku nin garabkiisa wax loo qaadana hadda waxba laga soo guri karaba oo hal jawaan wixii ku halaabeen meesha ku halaabeen ilaa gormaas leedahay xaaladan waa sii soconay wallahi horta ilaahay ba waqtiga ay dhamaanayso laakiin waxaan rajaynaynaa wax bil ka bacda inay nafaas heli doono umaleynayna sida awal arki jirnay beerahan ma ku marka dhawaan la bilaabay maxaa keenay marka in mar alla markuu roobkan ay daan in la gaari waayo beerihii oo marka badarkii ay ku halaabaan maarta beeraha hada webiga ma laha xukuumad ma leh dawlad xukuumaysa ma leh webiga soo rabo iska socon mar eberu noqon mar waa fataha marka waxa la rabaa dawlad inay nidaam u sameeyso webiga la xayira oo la hagaajiyo oo biyihiisa meel lagu sugo webiga firiya iska socda wax xukuumanay ma laha marka meel lagu tilmaami karo ma laha marna waa badana mar waa yaraana mar eber noqona mar waa fatahada ila magaalada gala asaasa yeelis maxaa laga qaban karaa leedahay hadii aad beeraleyda tiin maxaa marka dawladda ka qaban kartaa leedahay waa laga qaban karaa meelaha ay ka soo bixi karaan laga dhisi karaa maxay farafara meel walba kama soo baxo webiga meel baad ka soo meelaha iyada laga dhisi karaa roobka kor ka imaadaya oo webiga soo aadinaan waxa loo sameyn karaa meel biyo xireen iyo maartay dheemam oo jilaalka laga cabo loo sameyn karo lagu yareyn karaa oo biyo lagu leexiyo dawladda dhaxana way ka seexatay tii kale oo accounting roob ka dartibo idinka beeraleyda tiin intaas arursateen dawladda dhaxay marka muu tagteen oo dhibaatooyin ugu sheegteen mar badan aan sheegnay laakiin wax naga hoos qaaday malaha kan anagi sheegmaankaayna waa daalnay laakiin shuwan ka dhayn hadda ma ba sheegnaba waa iska aamusnay tabar ma hayna hadda ilaahay baa tabar la anaga tabar ma leeyahay waxa laga soo bilaabaa balanbala ilaa burra sidana beer walba biyo u yeelan labada dhinacba webiga Tana River labada dhinacba oo fasaama meel wax laga soo qaadan kara male Daahir Maxamed Qanyare oo kamida beeraleyda magaalada Gaarisa ayuu kaasi u waramayay wariyaha iyaga Bashkas Jug soo dhacay Facebook ay hadaba dhageystayaal baa raayigooda arintaasi kaga soo dhiibteen Xuseen Maxamed oo jooga magaalada Beledweyne waxa uu leeyahay beeraleyda Gaarisa ee ka cabanaya daadadka ku soo rogmaday beerahooda waan ka soo horjeedaa waayo buu yiri roobabkii ka daayay halkaasi Alle subxaanahu wa tacaala ayaa inagu arxamay aadanahuna shuqul kuma lahan roobka eeba ayaa keenay marka yaa loo gudbinaya buu yiri cabashada waxa ilaha boon buu leeyahay in rabbi loogu mahadiyo nimcada uu inagu arxamay yaan laga caban Ahmed British oo jooga Khartoum waxa uu leeyahay beeraleyda waa in dawladdu u samaysaa biyo xireenno si xilliyada roobka aysan dhibaato uga soo gaarin waayo haddii kale dadkaasi waxa ay ku qaadanayaan buu dadka oo nabad gurinayaan beerihii ay dadkaasi muddada soo tabcadanayeen taasina waxa ay ka dhigan tahay buu yiri
tacabka habbo. waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC ee Facebook dhegeystayaal idinkuna ra'yigiina waad ka soo dhiiban kartaan warbixinadan dhawaantan halkaasi ku daabacnay. halkaad nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:12 daqiiqo. warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid ah Maxamed Salaax oo ku guuleystay laacibka horyaalka Ingiriiska. balse markan hogaamiyihii Serbiyiinta Bosnia ee mar laga cabsan jiray haatanna loo xukumay dambi dagaal waa Radovan Karadžić ayaa maanta oo Isniina waxa uu bilaabayaa racfaanka ka qaatay xukunka ay ku rideen xaakimiinta qaramada midoobay 2016 ayay ahayd markii hogaamiyihii hore ee dhinaca siyaasadda ee Serbiyiinta Bosnia lagu helay 10 dambi oo kala duwan oo waxa ka mid ah dambiyadaasi dambiga ah inuu maleegay xasuuqii 1995 ka dhacay magaalada Srebrenica halkaas oo lagu tirinayo inuu ahaa midkii ugu xumaa ee dhiig ku daato ee Yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaana ninkan lagu xukumay 40 sano oo jeela. wariyaha BBC-da Anna Holigan ayaa faafahinta warkan inoo soo dirtay. waa kan Bashiir Maxamed Caato oo soo jeedinaya. waa fursadii ugu dambeysay ee Radovan Karadžić ee isugu dayay inuu ku qanciyo xaakimiinta inuusan wax dambi ah galin ama ugu yaraan uu qalmo in kiiskiisa dib loo dhageysto. waxaa lagu xukumay inuu ka dambeeyay dilka ku dhawaad 8,000 oo qof oo muslimiin ah oo lagu dilay magaalada Srebrenica kuwaasi oo meydkooda lagu daadiyay xabaalo wadareedyo iyo weliba godoomintii 44 bilood lagu hayay caasimadda Bosnia ee Sarajevo halkaasi oo 10,000 oo qof oo rayid ah ay ku dhinteen toogasho toos ah iyo duqeymo aan kala joogsi lahayn. Radovan Karadžić ayaa waxa uu isku soo duuday 50 qodob oo uu sal looga dhigay racfaankiisa. kooxda ogeysay dacwadda ninkan loo haysto ayaa ku doodaya inuu si fudud ku baxsaday oo waxa ay leeyihiin waxay ahayd in xaakimiinta ay ninkaasi ku heli lahaayeen dambi ah inuu xasuuq ka geystay 7 magaalo iyo tuulooyin kale. waxay sheegayaan inuu qayb ka ahaa burcad si wadajir ah u doonayay in gabi ahaanba bulshada muslimiinta ah looga saaro dhul ay sheegteen Bosniyiinta Serbiya uuna mas'uul ka ah xaaladii ka taagneed xiriir loo farsameeyay in dadka lagu laayo. waxaana ay sidoo kale ku doodayaan in xukunkiisa la gaarsiiyo mid cimriga ah ku furta. aad u mahadsan tahay Bashiir Maxamed Caato ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha BBC-da Anna Holigan ee inooga soo dirtay wadanka Holland. halkaad warbixinadaasi kala socotaana waa BBC. markanse taxanihii aanu ku eegeynay malaariyada iyo dhibaatada ay u geysato bulshada Soomaaliyeed maantana waxaanu eegeynaa sida cudurkan uu saameeyay dadka reer guraaga ee ku nool dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. wariyaha BBC-da ayaa halkaas inooga soo warama ayaa hadaba waxa uu duleedka magaalada Jigjiga ku booqday reer xoolo dhaqato ah oo siyaabo kala duwan u isticmaalaya marakaneecada loogu talagalay in cudurka looga gaashaanto. gabar ka mid ah qoyskaas ayaa intay qayb ka mid jirtay marakaneecadii misana waxay ku xiratay madaxa waxyaabo kalena oo isticmaasha talo maxaa arrinta ku dhaliyay. bal markan idinku wareejiyo Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo iyo warbixintii oo halkaas inooga soo diray. صدح كاغديغا وفعنا لنا عروتو xidhnaadii aad wax ka weyn bay noo tartay oo ama wax ka weyn idin tartay waxa ka weyn noo tartay xarug bay noo noqotay masar baan ka dhiganay hada daaban ka dhiganay warun daabaad ka dhigatay masarkiin uu ka muuqdaa xariga wali ma arag laakiin wax ka weyn bay ku tarlahaydoo carruurta ugu xidhnayd kanaacada ma soo kordhin kartaan wax badan ba xarkaan ka dhiganay xarkaa maxaad ku isticmaashaan marka dambe waxaan ka dhiganaa dharban ku waran karnaa guri baan ku dhisan karnaa wax badan bay manaafacaad noo noqonaysaa awrtaan ku ranaa dameeraan ku ranaa xariga adag weyn aad u fiican weyn aad wax ka tareyn duqum ku raamsan yahay arintan duqum xuguriga ogay isagoo anba ogay awlaadaniga og dhaqaalooga dhalaniga og duq wax warmaay marka gambadan aad ba og gambadan aniga ogay xarkayga aniga og hooyo 70 jir aan ku qiyaasay magaceedana ay ugu sheegtay Dayiba oo jaamac ayaa waxaan u tagnay iyadoo xarigii soo haysay waxaana weydiinay sababta iyadoo lafaheeda ugu xidhan weyday marakaneecadan xarig baan ka tidhi oo awrkan ku xidhan oo qoryaan ku soo guur awr baan ku xidhaa oo dabar uga dhigaa laakiin armi wanaagsanaan lahayd inaad adigu lafahaaga u xidhato oo kaneecada iskaga ilaaliso maya kaneecada ay cuni ma taa walba way cuntaa kaneecadu yahay anigu yadda kaneeca xidhato ma iyo anigu awrkii loodan baan u baahanahay bas nin reerkan xoolo dhaqatada ka mid ah ayaa wuxuu noo sheegay inay jiraan dad badan oo si wanaagsan u isticmaala oo aysan ahayn kaliya intaan indhahana ku aragno wuxuu noo geeyay gabadh magaceeda la yiraahdo Nimco Axmed oo aadan kaneecadu markay roobashu da'aan waxaan ku roobku doo aad ba u kacdaa aad bay dadka u cuntaa marka maxaad ka gaashaamataan marka kaneecada ka xidhanaa markaan ka xidhanay ubadku ma toosaan annaga iyagii baba hoos kala
galno imse ilmo baahda tan weyn ku gashaa waxa ay gala farciyaal yani ma cunto kaneecadu ma kaneecana ma cunto anaga iyagu waaweyneen bay bana cunina hoos kala noo xidhanna haddii aan lidin siinin oo xukuumaddu wax markaan siinin seed yeeshaan kaneecadu markuu roobku doo ay kacdo waan soo iibsanaa oon xidhanna haddiina loo keenana waan qaadanaa oon xidhanna waddankan Itoobiya ayaa wasaaradda caafimaadku warbixin ay sanadkii aan soo dhaafnay 2017 ay soo saartay waxay ku sheegtay in 800 ee degmo ee waddankani ka kooban yahay 215 kamid ah ay ka tirtirtay cudurkan duumada halka degmooyinka kalena ay dabaal joogteynayaan darajada dhexe ee ka hooseysa 50% waxayna warbixinta wasaaraddu ku sheegtay in sanadku markuu gaadho 2030 ay qorshaysatay xilliga cudurka duumada waddankan ugu dambaysa wadamada qaaradda Afrika ee cudurkan hoos u dhiga weyn ku sameeyay ayaan safka hore kaga jirnaa ayay warbixintu tiri hadaba dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka kooban 93 degmo ayaa 2 degmo oo kaliya waxay ku jiraan darajada sare ee cudurkan ku dhicitaankiisa iyo soo reetaankiisa lagu qiyaaso labada degmo oo kala ah degmada Goday iyo degmada Alel sida xafiiska caafimaadka ee heer deegaan noo sheegay halka 20 degmana loo aqoonsaday in laga tirtiray cudurka duumada degmooyinka intooda kalena waxay ka siman yihiin heerka dhexe ee 50% waxa ka hooseeya lagu qiyaaso saddex kaaga diga hoos u dhaca cudurkan duumada ayaa xafiiska caafimaadku wuxuu ku macneeyay dadaal badan oo loo galay dhinaca ka hortaga in ay dhalato kaneecadu Aydarus Axmed Maxamuud waa ku-xigeenka madaxafiiseedka caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida qaabka aan hortagno waxa kamid ah waxa kaneecada la buufiyaa xilliyada roobaadka ama xilliyada ay dhalato iyadoo degmooyinka aan sanadkii ugu yaraan labada xilli ee ugu badan ee roobabku u badan yihiin dhammaan dalahaan iyo deegaan ahaanba gaar ahaan deegaankeena aynu ka buufino guri walba isla buufinta aanoo ka baxayn waxa jira dhinacyada horumarka maadaama gidibyo badan baraaga badan aynu leenahay iyo sidoo kale webiyaal si ayna ugu faafin waxa jirta xanuunkan xilli uu yaryahay oo uga xutaagan yahay larval stage xilligaa waxaanu siinaa chemical laga hortago in ayna kicin marka buufintu waa hal nooc oo kamid ah ka hortaga talabaad ee laga hortago waxa weeyaan waxaynu qaybinaa 3 sanaba in ka badan 3 milyan oo markaneeco taasoo ka hortagta qaniinyada keliyata iyadu codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii wariyaha BBC da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo inooga soo diray magaalada Jigjiga halka warbixinadaasi kala socotaana waa BBC ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:19 iyo 25 ilbiriqsi warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid ah seeraha Queen Elizabeth ee galbeedka Uganda oo dagaal ku dhex marayo xoolaha iyo dadka deegaanka balse markan laacibka xulka wadanka Masar iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee wadanka Ingiriiska Mohamed Salah ayaa waxa ku guuleystay laacibka horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan waa ciyaaryahankan 25 jirka ee u dhashay wadankaasi Masar ayaa goolal badan oo 31 dhaliyay iyadoo waliba uu goolashaasi kula sintay laacibintii hore goolasha ay ka dhaliyeen horyaalkaasi waa Cristiano Ronaldo iyo Luis Suarez iyo waliba Alan Shearer waa tahay laakiin Maxamed Cabdiraxmaan ayaa haatan studio uga soo biiray Maxamed war wanaagsan baa u soo yeeray taageerayaasha Masar iyo Liverpool waa mahadsantahay Cabdi Fataax Mohamed Salah waxa uu abaalmarinta kaga guuleystay Kevin De Bruyne David Silva iyo Leroy Sané oo saddexdaba u wada dheelo kooxda Manchester City ee hadda ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska waxaa sidoo kale uu kaga guuleystay Harry Kane oo kooxda Tottenham weerarka uga dheela iyo David De Gea oo ah boortaha ee kooxda Manchester United waxa uu ahaa laacibka ugu wanaagsan ee xil ciyaareedkan iyadoo taageerayaasha Liverpool oo aad ula dhacsan gool dhalintiisa ay ku naaneyseen boqorka Masar mar uu ka hadlayay guushan uu gaarayna waxa uu yiri I feel great about that. I work hard and I'm very happy to win it. aad ayaan ugu faraxsanahay abaalmarintan waan u dadaalay waana ku faraxsanahay inaan ku guuleysto kooxdayda ayaa si weyn ii caawisay oo goolasha aan dhaliyay iyaga ayaa ii soo baasay marka in badan ayay iga caawiyeen si aan waxqabadkaas u muujiyo oo aan sidaas u sii dheelo tababaraha ayaa ku mahadsan qaabka aan u dheelno kooxda iyo qaabka aan u dheelno ayaana ah kuwa ii wanaagsan Coach, the manager, the team and the way we play is very nice for me. Mohamed Salah ayuu kaasi ahaa oo hadlayay kadib markii uu ku guuleystay biladaasi laacibka ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska Maxamed Cabdiraxmaan oo ma la filaya marka ninkan inuu heerkan gaarayo oo biladan uu ku guuleysan doono
cabdifataax akhristayaasha ee barta b b c sports ayaa la weydiiyey ka hor intaan abaalmarinta la bixin inay u codeeyaan cidda ku guuleysan karta waxaana loo soo bandhigay 60 ciyaartooy ee ku tartamaysay markii la sameeyey natiijada codbixinta ay sameeyeen dadka akhristayaasha ee b b c sports waxaa caddaatay in boqolkiiba 76 ay u codeeyeen in uu mudan yahay in abaalmarintaasi la siiyo weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah. waxaa kaalinta labaad soo galay oo boqolkiiba 14 helay Kevin De Bruyne oo u dheela Manchester City. marka waaba qayb ahaan waa la sii ogaaba la oran karaa dadkana badana waxay ka hadlayeen gool dhalintiisa ninka Maxamed. waa runta Cabdifataax wiilkan u dhashay Masar waxa uu dhaliyay 31 gool 33 kulan oo u saftay kooxda uu hogaamiyo macallin Jurgen Klopp oo horyaalka Ingiriiska kaliya ah. waxaa la saadaalinayay marka haddana waxaa la saadaalinayaa andhahe inuu ku guuleysto kabaha dahabka ee xilli ciyaareedkan. Salah waxa uu xagaagii hore Liverpool kaga soo biiray kooxda Roma ee ka dhisan dalka Talyaaniga waxaana lagula soo wareegay lacag dhan 34 milyan oo pound. waxaana uu gacan ka geystay isla xilli ciyaareedkan 9 gool oo ka mid ah goolasha horyaalka Premier League. goolkii 31aad ee uu Sabtidii ka dhaliyay West Bromwich Albion ayaa waxa uu dhanka gool dhalinta kala sintay weeraryahanadii ugu caansanaa ee horyaalka Ingiriiska soo mara sida Alan Shearer, Cristiano Ronaldo iyo Luis Suarez oo u dheeli jiray asna ee Liverpool. Cabdifataax waliba Maxamed intaadan ka bixin kugu sii dare Mohamed Salah wuxuu ka hortagi doonaa kooxdiisii Roma ay Liverpool ka soo gadatay ciyaarahan dhamaadka koobka horyaalada Yurub. waa sida Cabdifataax aad baad u mahadsantahay Maxamed Raxmaan Sheekh ayuu kaasi ahaa oo faafahinta warkaasi ina siinayay. Facebook ay hadaba dhageystayaal aad u tiro badan raayigooda kaga soo dhiibteen. Kaysa Maxamed Bilow jooga Laascaanood waxa uu leeyahay soo dhaweynaya laacibka muslimka ay ku guuleystay laacibka England waana arin mucjiso ku noqotay weeraryahanada dalkaasi ka ciyaaray iyo gabi ahaanba caalamka. Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan oo Muqdisho joogana isna waxa uu leeyahay hambalyo Mohamed Salah wuxuuna kasbaday buu leeyahay qurubta dad badan oo kubadda cagta daawada wuxuuna ku gasbaday buu yiri guusha uu xalay ka gaaray inuu ku guuleysto laacibka ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska. ciyaarihii kale intaanan ka bixin haddii aan sii raaciyo kooxda Chelsea ayaa waxay u soo gudubtay dhamaadka koobka FA-ga kadib markay xalay 2-0 kaga adkaatay kooxda Southampton oo ay ku wada dheeleen garoonka Wembley. Man City oo ku guuleysatay horyaalka Ingiriiskana waxay 5-0 kaga adkaatay kooxda Swansea City iyadoo waliba Man City lagu wado inay 2 rikoor oo cusub u dhigto horyaalka Ingiriiska waa dhanka gool dhalinta iyo waliba dhanka dhibcaha. Arsenalna waxay iska reebtay kooxda West Ham United oo 4-0 ay kaga adkaatay halka Stoke City iyo Burnley ay 1-1 ku kala baxeen. Juventusna waxay gaartay guul muhiim ah oo ugu sii dhawaanayso inay ku guuleysato koobkii toddobaad oo xiriir ah oo koobka Serie A ah. Barcelona rajo wanaagsan ay leedahay kadib markii kooxdii ku soo dhaweyd ay barbara xalay gashay. waa tahay halkan weli nagala socotaana waa BBC. markana sheekadii kale aan idin sheegay hadaan u wareegno goobaha duurjoogta lagu xanaaneeyo ee dalal badan oo kamid ah qaaradda Afrika ayaa waxay tahay isha ugu weyn ee dhaqaalaha ka helaan halka isbedelka cimilada iyo waliba in duurjoogtu ay weyso meesha ay ku noolaan jirtay loo arko inay tahay khatarta ugu weyn ee xayawaankan soo wajahaya. ayaa haddana waxaa jira cadaadiska ka imanaya habnololeedka dadka waxa uu noqonayaa baa laleeyahay loolanka dhabta ah ay wajahaan kooxaha ilaaliya duurjoogta. wariyaha BBC-da Patient Atoer ayaa waxa ay warbixintan inooga soo dirtay seeraha Queen Elizabeth ee galbeedka Uganda halkaas oo uu dagaal ku dhex marayo xoolaha iyo dadka deegaanka. warbixinta ay noo soo dirtayna waxaana la socodsiinayaa Cabdulqaadir Yuusuf Cali. xarunta qaranka ee lagu xanaaneeyo duurjoogta ee Queen Elizabeth ayaa noqonaysa cadawga koowaad ee bulshooyinka ku dhaqan halkan. waa 7 aroornimo. Francisca Yawa oo 35 jir ah ayaa waxa uu lo'diisa ka dareerinayaa xero ku taala tuulada Humukungu. marka lo'da ay halkan ka baxayso ma hubo in ay dhammaantood si nabad ah ku soo laabanayaan. muddo sanad hadda laga joogo lo'dayda ayaa ka soo laabanaysay daaqa halkaas oo mid ka mid ah lo'da uu libax weeraray. waxaa jiray qof ay magacaawday waaxda duurjoogta oo dadka deegaanka iyo maamulka kaymaha u dhexeeya ee cabashadooda qaabila. marka muddo badan ayaan booqday wax natiijo ahna kama helin. sidoo kale waxaan booqday xarunta dhexe ee kaymaha duurjoogta balse dadaalkayga meelna ma uusan gaarin. wixii intaasi ka dambeeyena waan ka niyad jabayba.
banaba consultinga tibiza natambura naruha nabesasir waqti xadirkan meel 100 mitir u jirta halka aan taaganahay waxaa maraya koox maroodi ah oo waxaan ku sugannahay dhul daaqsimeedkoodii 2 toddobaad ka hor meydka 11 libaax ayaa laga helay meel aan sidaa uga fogeyn halka aan ku sugannahay waxaana looga shakisan yahay inay cuneen hilib la sumeeyey 11kan libaax ayaa ka mid ahaa in ka yar 100 libaax oo ku sugnaa xaruntan bulshada halkan degan ayaana looga shakisan yahay inay dileen booliska ayaa wada baaritaano ku aadan sababta ka dambaysa dhimashada libaaxyadan balse waqti dheer ayaa ku qaadan doontaa booliska inta ay ka ogaanayaan sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhacdadan dalxiiska Uganda ee duurjoogta waxaa ka soo gala $1 bilyan sanadkiiba marka duurjoogta sii yaraanayso waxay caqabad weyn ku tahay dakhliga soo gala dalkaasi wasaaradda duurjoogta ee Uganda ayaa sheegaysa inay sharci darro ku tahay qof kasta oo halkan ku dhaqanaya xoolihiisa ka tabcanaya beero ama ku dhex nool xaruntan Edward Asulo waa mas'uulka u qaabilsan dawladda xaruntan Queen Elizabeth we do patrols in all these areas where lions are waxaynu kormeer ku sameynaa dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin libaaxyada waxa kaloo aynu xaqiijinaa in dadka aysan imaan halkan oo aysan ugaarsaneen duurjoogta maxaa yeelay dadka qaar ayaa libaaxyada waxay u ugaarsadaan arrimo la xiriira dhaqanka ay aaminsan yihiin waxaa kaloo jirta qayb ka tirsan waaxda xanaaneynta duurjoogta kuwaasi oo qaabilsan bulshada halkan ku nool lana macaamula dadka deegaanka una sheega qiimaha ay leeyihiin duurjoogta iyo libaaxyadani to tell them the values of these lions dhawaqa firimbigaas waxaa qof kasta lagu ogeysiinayaa inay jirto khatar balse duurjoogta ku nool xarunta xanaanada xoolaha ee Queen Elizabeth ayaa cuna lo'da iyo ariga ay leeyihiin dadka deegaanka taas oo sababtay inay isku dhacaan ilaalada xarunta iyo xoolo dhaqatada cabdulqaadir aad ayuu ugu mahadsan yahay markana dhegaystayaal iga raalli ahaada Juventus xalay Ibra ayaa looga adkaaday oo dhibcihii aad baa loo soo yareeyay oo Napoli oo ka adkaatay ayaa haatan waxay Juventus ka horeysa 1 dhibic oo kaliya balse 4 ciyaar oo kaliya ayaa harsan waxay ku soo dhamaadaan oo arki doonaa intaan barnaamijka aynu ku soo gabagabeynayna intaan dib u kulmi doono labada duhurnimo hadduu eebeedmo sidaas iyo nabadgelyo